gobolka Banaadir ayay kaga hortageen gaari ay walxaha qarxa ka soo buuxiyeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kaas oo la doonayay in lagu soo weeraro shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho. gaarigaasi waxay ciidamada hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed oo helay macluumaadkiisa kaga hortageen gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Warmaxan. halkaas ayay ku qabteen gaarigan oo noociisu yahay Toyota Epson ahna modeladii ugu dambeeyay ee dalka soo gaaray dhawaan. waxaana gaarigani markii ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee nabad sugiddu kaga hortageen deegaanka Warmaxan kuna amreen inuu joojiyo wadaha gaariga ay ka dareemeen durbabiiba dhaqdhaqaaq uu ku doonayay inuu halkaas ku miidaamiyo si uu khasaaro u gaarsiiyo ciidamada. laakiin feejignaanta ay ciidamadu ka qabeen isku day noocaasa markiiba waxay ku toogteen wadihii gaarigaasi isla goobta kaasoo ka tirsanaa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. dabeetana waxa halkaasi amiinisyaal ka tirsan nabad sugiddu ay ku furfureen qalabkii qaraxyada ahaa ee gaarigaasi laga soo buuxiyey oo ay ku jiraan sun halis badan iyo weliba waxyaabo dhalinaya holac kuwaas oo masaafo fog ka baabi'in kara dad shacaba. gaarigani ayaa kadib markii lagu guulaystay in qaraxyada laga furfuro waxaa loo soo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaana maanta lagu soo bandhigay taliska ciidanka nabad sugidda halkaas oo gaariga maanta ay indhahooda ku arkeen mas-uuliyiinta ammaanka ugu sarreysa dalka uu horkacayay wasiirka wasaaradda amniga qaranka mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga mudane Ibraahim Yarow kusimaha taliyaha nabad sugidda Korneyl Xaamud iyo weliba taliyaha qaybta guud ee nabad sugidda gobolka Banaadir gaashaanle dhexe Maxamed Aadan Koofi. saxafiyiinta oo loogu soo bandhigay gaariga xarunta Dhagaxtuur ayaa halkaa waxaa warbixin ku siiyey wasiirka ammaanka iyo wasiir ku-xigeenka iyo weliba warfidiyeenka Generaal Axmed Xasan Maalin taliyaha hoggaanka howlgallada ee ciidanka booliska Soomaaliya. waxaana uu taliyuhu isagoo ku hadlaya magaca hay'adaha ammaanka ka warbixiyay gaariga iyo sida lagu soo qabtay. mudane wasiir maalintii taariikhdu ay ahayd 22kii bishii 3aad 2014 shantii galabnimo baabuurkan oo laga soo bixiyo waxyaabaha qarxa looguna talagalay in xamar la soo geliyo ayaa waxaa lagu qabtay meesha la yidhaahdo Warmaxan. waxaana qabtay ciidamada amniga. waxyaabaha waxaa lagu soo diyaariyay baabuurkan oo informationkiisa ilaa muddaba la soconay duurka Qoryooley. sida aawadeed ciidamada amnigu markay ka war heleen iyo wasaaradduba sida aan la soconno oo riboorku weliba nooga yimid wasaaradda awaamir ayna siisay in aan soo qabanno baabuurkaasna meel uu jaraba la raadiyo. waxaana laga helay meesha la yidhaahdo Warmaxan isagoo soo socda. ninkii watay oo rabay inuu isku qarxiyo waxa waaye bartiyaa lagu dilay. sababtu waxay ahayd waxa uu doonayay intuusan gaarin in laga hortago waajib waaye. waxaa kaloo jirta baabuurkan taargadiisu waxa waaye AD 1152 waxaa ku qoran nin la yidhaahdo Shariif Ciise Aadan. baabuurkan marka mudane wasiir waxaa lagu soo sheegay warbixintiisu muddaba waan haynay waana lagu daba socday. waad u jeedaa sida looga soo buuxiyey waxyaabihii qarxay ee la furfuray ee ciidamada nabadgelyadu ay ka shaqeeyeen si aan qaraxa loo fashaliyo. waxaasoo loogu talagalan in xamar la soo geliyo ahaa barnaamijkiisu hase yeeshee ka hortageeda iyo dadaalkii iyo awaamirtii aad bixiseen adinkaba ayay sababtay in la qabto baabuurkaas. dabeeta wasiirka ammaanka qaranka mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadalka qaaday ayaa ku ammaanay ciidamada nabad sugidda qaranka iyo guud ahaan hay'adaha ammaanka geesinimada ay muujiyeen iyo sida ay uga hortageen falka argagixisanimo ee la doonayay in lagu qalqalgeliyo ammaanka caasimadda Soomaaliya Muqdisho. waxa uu sidoo kale wasiirka ammaanka qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed sheegay in la abaal marin doono dadkii fududeeyay macluumaadka gaarigaasi. ku amaanan yihiin muwaadinka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inuu sidaas la mid u soo sheego wixii bulshada dhib ku ah wixii ummadda dhib ku ah wixii maaragtay nafta aadanaha iyo muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa cirdigiisa sharaftiisa intaba dhib ku ah inuu soo sheego ayaa la rabaa. طبعا هيئة أمنية هري مرة دور جرا waxay u sheegeen cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ay soo sheegta
dhibka la maleegayo dhibkaas sheegidda oo soo sheegay lagu guulaysto in la qabto inay abaalmarin ciddaas ay heli doontaan hore u sheegnay dabcan abaalmarinta ilaahay ayaa ka weyn maxaa yeelay qur-aanka waxaa ku jirta waman axyaaha fakaannama axya naasa jamiican qofkii qof bini aadana nooleeya wuxuu la mid yahaa asagoo bini aadanka o dhan nooleeyey adiga bal qiyaas gaarigan hadda asaga ah ilaahay ma qadaree hadduu meel bulsho badan oo soomaaliyeed ay dhooban tahay ninkaa sharwadaha uu ku qarxin lahaa meeqa qofaa ku dhiman lahayd waxaa suurtagal ahaan lahayd in nafaf badan oo soomaaliyeed oo muwaadiniin soomaaliya waxba galabsan ay ku dhiman lahaayeen qofkii maanta sheegay xogtiisa iyo xuuraankiisa lagu soo qabtay waxaan shaki ku jirin intay ku dhiman lahayd asagoo nooleeyey ayay la mid ah ajirkaas ajir la mid ah ayuu helayaa fashilinta howlgalka ay al-shabaab doonayeen inay ku qarxiyaan caasimadda soomaaliya muqdisho ayaa qayb ka noqonaysa dadaalada ciidamada ammaanku mar kasta ugu jiraan inay ka hortagaan wax kasta oo qarbudaada oo ay soo maleegaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab kuwaasoo ka caado yeeshay xasuuqa iyo laynta shacabka soomaaliyeed waxaana ciidamada ammaanka oo u tababaran ilaalinta iyo daryeelka shacabka ay u taagan yihiin mar kasta inay ka hortagaan fal kastoo ammaanka shacabka lagu qalqalgelinayo